kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal asxaabteena cusub asxaabta kasii horeysay bulshaweynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan bahda YouTube-leyda iyo social media-sha kale dhammaantiin walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib daawadayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago macluumaad ka soo baxay wiilkii ama dhalinyaradii gabdhaha ardayda ku garaacday ama suunka la dhacday Somaliland gaar ahaan Cigaal Primary School Gabiley arintaasi waxay dhacday ama aan baraha bulshada ka aragnay bisha aan ku jiro September 2020 qoraalka ka soo baxay iskuulkaasi ama maamulaha iskuulkaasi soo saarayna waxaa la soo qoray bishan aan ku jiro afarteeda sanadka 2020 waa maalinta shalayto waxaan idinla wadaagi doonaa qoraalka ka soo baxay mas'uuliyiinta iskuulka dhalinyaradaasi runtii baraha bulshada meel walba ayaa laga arkay ma rabo inaan YouTube soo dhigo sababtoo ah waa waxa aan runtii akhlaaq wanaagsan ahayn waa waxa indhaha bani aadan u fiicneen dadka inta arka way arkeen ma rabo inaan YouTube soo dhigo dadka Soomaaliyeed intooda badan way arkeen balse ma rabo inaan YouTube soo dhigo oo dadka ajnabiga ama dadka wadamo kale ku nool ay daawadaan oo ay dhahaan Soomaalidu sidaas ayay gabdhaha la dhaqmaan sidaa darteed ma rabo inaan YouTube soo dhigo sidoo kale waa violence of course ma ahan waxa oo ciyaar ah nin dhalinyaro ayaa gabdhaha garaacayo oo dilayo waxaa laga sheegay inuu wuxuu ku garaacay inay suun tahay balse ani ma cadeyn karo inay suun tahay iyo inay tahay tayga oo suudka lagu xirto inay tahay ma cadeyn karo si kastaba ha ahaatee muuqaalku waa violence ma idinla wadaagi karo balse waxaan idinku soo dirayaa groupkeena WhatsApp-ka Qays iyo Raxma channel WhatsApp group haddii aad ku jirto halkaasi ayaad ka arki doontaa ama ka daawan doontaa haddii aad hore u daawanin haddii aad groupka ku jirina link ayaan hoos idin dhigaya insha Allah taala linkigaas taabo groupka ku biir muuqaal YouTube la soo dhigi karin halkaas ayaan idinla wadaagi doonaa iyo waxyaalaha aan YouTube soo dhigeenin oo degdeg ah oo asxaabteen halkaas kala socdaan adigana ku soo biir nala soco haddii aad daneynaysid inaad ku soo biirto groupkeena link hoos ku qoran fadlan raac arrimahaasi dhacay oo wiilashaasi sameeyeen siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay runtii waa waxa aad iyo aad laga xumaado haddii xataa ay tahay ciyaar haddii xataa ay tahay waxay ku garaaceen ay suun ahayn oo wax kale ay tahay sawirkaasi ma ahan sawir wanaagsan waa sawir runtii ka turjumayo dhibaatooyinka soo jireenka ah oo runtii gabdhaha Soomaaliyeed loo geesanayo cadeen u noqonayo ama muujinayo inay dhibaatooyinka runtii xoogan ka jiraan dalka Soomaaliya ama tacadiyad gabdhaha lagu geesto inay jiraan wiilashaasi waxaa la sheegay midka suunka la dhacay ama wuxuu gacanta ku haystay waxay tahay la dhacay in la qabtay oo la xiray kii muuqaalka ka duubayana la raadinayo haddaba haddii aan su'aal idin weydiiyo ninkii ka duubayo iyo ninkii gabdhaha garaacayo isku dambi miyay noqon karaan sababta loo raadinayo maxay tahay su'aashaasi adinka ayaan idin daanayaa qaybta comment inaad noogu soo gudbisiin ninkii gabdhaha garaacay iyo ninkii ka duubay isku dambi miyay noqon karaan haddii ay isku dambi noqdaan sababta isku dambi u noqonayaan maxay tahay su'aashaasi adinkaan idin daanaya midda kale aan rabo inaan idinla wadaago baraha bulshada waxaan ka arkay dad badan oo oranayo Somaliland waxay sheeganayaan dawladnimo maantana gabdhaha Soomaaliyeed ayaa iskuulka dhaxdeeda lagu garaacaya sidaas loo galaya arintan oo kale walaalayaal meel walba way ka dhici kartaa Somaliland kaliya ma ahan Mareykan ayay ka dhacdaa Ingiriiska ayay ka dhacdaa Yurubta meel walba ayay ka dhacdaa wadamada horumar gaaray dawladdu shakhsiyaal dhibaato wado gacan ma qabanayso balse waxay awood u leedahay dhacdadu markay dhacdo qofkii dhibaatadaasi geystay cadaalad la horkeeno si ay maaragtay kuwa ka dambeeyo ku cimri qaataan oo aysan arrin noocaas oo kaleeto dambe u dhicin dawladdu waxa kale oo ay awood u leedahay inay sameyso inay wacyigelin bulshadeed sameyso arrimahaas oo kale si looga hortago oo aysan ka dhicin dalalka dawladda ka jirto
marka arrimahaasi waxaan leeyahay ambaraha bulshada inta badan aan ku arkay dadka intooda badan fursad ka dhigteen inay Somaliland taageerayaan waxaan leeyahay arrintaasi ma ahan wax oo Somaliland kaliya ku kooban meel walba ayay ka dhici kartaa qof xun ama si xun u fikiraya meel walba ayuu joogaa qof edeb dara meel walba ayuu joogaa kufsi hadii la yiraahdo wadan kasta kufsi uu ka dhacaya violence meel walba ka dhacaya sida arrimaha wiilashan sameeyeen oo kale to meel walba ayay ka dhacaan taasi marka inaan hadal ka dhigano aan Somaliland case uga dhigno aan ku ataagereeno waa laga fiican yahay ayaan qabaa ugu dambeyn walaalayaal warqadii ka soo baxday Cigaal Primary School Gabiley iskuulkaas oo ah iskuulka gabdhahaasi dhigtaan iyo wiilashaasi ayaan idin akhrinayaa sidoo kale warqadaasi ayadoo qoraal geeskan ayaan idin dhigi doonaa qofkii rabo halkaas ayuu ka akhrisan karaa insha Allah taala warqadu waatana halkaas inaan ka arkaysan kala ma aqaan hoos waxa ku saxiixan Cigaal Primary School Gabiley ayaa ku saxiixan waxa ku qoran warqada waxa la qoray bishan aan ku jiro afarteeda shalay bisha September 4 sanadka 2020 ayaa la qoray waxaana ku socotaa warqadan waalidka Mahad Cabdirasaaq Cali waa wiilka gabdhaha garaacay ama gabdhaha dilay warqada sidoo kale waxa la ogeysiiyay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Gabiley sidoo kale waxa la ogeysiiyay saldhigga booliiska ee Gabiley ujeedada warqadan Mahad Cabdirasaaq Cali arday fasalka 8aad kadib markii aanu aragnay falka akhlaaq xumada ah uu kula kacay hablaha ardayda ah suun la dhacay magaalada dhexdeeda isla markaana soo dhigay baraha bulshada waxa maamulka dugsiga soo saaray go'aanka hoos ku qoran kow waxa si rasmi ah dugsiga looga eeriyay Mahad Cabdirasaaq Cali labo waxa maamulka dugsigu laamaha amniga ka codsanaya in talaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan dhacdadan isla markaan la soo xiro cid kasta oo ku lug lahayd falkani maamulka guud ee dugsiga Cigaal warqada sidaas ayaa ku qoran waxaan filayaa qodobka labaad waxaan u maleynayaa waxa laga wadaa wiilkii wax ka duubay ama qoladii wax ka duubeysay iyo asagaba in sharci la horkeeno ama talaabo sharci laga qaado marka dawladdu waa taas dawladnimada ama meel sharci ka jiro ama nidaam ka jiro meel walba sidaas u baa la sameyn lahaa arrintaasi waa arrin aad iyo aad u wanaagsan wiilkaasi si xun gabdhahaasi la dhaqmay in iskuulka laga buriyo waan ku qanacsanahay waana ku raacsanahay balse waxaan ka warsugeynaa laamaha amniga talaabo ay ka qaadi doonaan ama in cadaalad la horkeeni doono ayaan rajeynaynaa insha Allah taala sidoo kale kan muuqaal ka duubayo laftirkiis ama kuwa gadaal ka qoslayo kaamirada ka dambeeyay ayakana sidaad warqadanba ku aragteen in talaabo sharci laga qaado waa wax laga maarmaan ah arintani haday dhacdo dhalinyaradan cadaalad la horkeeno waxaan aaminsanahay kuwa ka dambeeyo inay cashar u noqoto aysan ku dhagaaqin arrimahaasi foolxumo badan oo gabdhaha walaalahood ku ceebeenin public dhaxdiisa ama bulshada dhaxdeeda kadibna baraha bulshada intay galiyeen oo runtii muuqaalkooda ayagoo wajigooda qarsooneen ayagoo wajigooda la arkayo oo maanta qof walba hadduu suuqa ku arko aqoonsan karo ayay baraha bulshada ku faafiyeen ay ku ceebeeyeen runtii waa wax aad iyo aad laga xumaado waxaan rajeynaynaa dhalinyarada kale inay tusaale u noqoto raggan cadaalad la horkeeno si arrintani tusaale u noqoto aad iyo aad baad mahadsantiin walaalayaal arrintaasi aragtidiina ka dhiibta saan hore idin sheegay muuqaalka waxaan idinku soo dirayaa groupkeena WhatsApp-ka haddii aad groupka ku jirin link ayaan hoos dhigayaa linkigaas raacay groupka saas ayaa ku biireysaa muuqaalka halkaasi ayaad ka daawan kartiin maadaama muuqaalku uu yahay violence halkan ma soo dhigi kari sidaas la socda insha Allah taala mar kale aad iyo aad baad mahadsantiin fadlan hadaad ku cusubta channelka Qays iyo Raxmaan subscribe taabo gambaleelkana furo saad u hesho notification taniya kulantideena dambe walaalayaal waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.